Bismillah, awalan salaamu calaykum dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba aad joogtaan. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo. Walaashiina Dr. Jiyaa iyo macluumaad ku saabsan caafimaadka. Walaalkayga qaaliga ah oo walaashayda qaaliga aheeday haddii tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channel YouTube-kayga fadlan subscribe saar, like saar. wixii fariimahana commentiga ina wareeb kambalalkana fura si aad ula socoto mar walba muuqaalada aan soo gelino. Kusoo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo baamiyaha iyo faa'iidooyinka caafimaad uu u leeyahay cunista iyo huuriska baamiyaha. Geedkan magaciisa kale ee loo yaqaano waa okra. Geedkan baamiyaha ah cunada ayaa aad loogu darsadaa iyo inta loo isticmaalo huuriska. Cunista geedka loo yaqaano okraha waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u badan haddii aad u isticmaasho waxyaabahan soo socda. Dadka qaba macaanka ayuu u wanaagsan yahay baamiyaha. Baamiyuhu wuxuu kaloo loo qaataa dufanta dhiigga raacda ee loo yaqaano kolestaroolka. Baamiyaha waxaa kaloo ka buuxa fitamiin C kana hortagta in ay dhaawac yeeshaan ama damage yeeshaan unugyada jirka oo idil. Dhanka kale, baamiyaha waxa uu u wanaagsan yahay lafa xanuunka, khaasatan kala-goosyada. Waana marka la uumiyo okraha. Baamiyuhu wuxuu u wanaagsan yahay aragtida indhaha iyo caafimaadka maqaarka sababtoo ah waxaa ka buuxa fitamiin A-ga. Hooyada uurka lahi aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay inay isticmaasho baamiyaha waayo wuxuu muhiim u yahay uurku jirta waxaana ay ka helayaan maadooyin aad ugu wanaagsan koritaanka uurku jirta ama uurjiifta. Sidoo kale, baamiyaha waxaa kaloo ku jira maadooyin hoos u dhiga dhiig karka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-kayga ka mid noqo asxaabta ku xiran. Sharaf ayay ii tahay ku soo biirida aad igu soo biirtay. Subscribe saar, like saar. Wixii macluumaad ah commentiga inoogu reeb.